aabba kaalaya ha bixina aabba gurigiinna jooga xilligan oo cudurka coronavirus uu adduunka faraba'an ku hayo waxaana lagula taliyey inaan guryaha joogno sababta ay arrinkaasi muhiim u tahay ayaan muuqaalkan soo socda ku sharxi doonaa dhibaatada uu leeyahay coronavirus waxaa ka mid ah in adigoo qaba xanuunka haddana aadan ka warqabin inuu ku hayo taasi micnaheedu waxa ay tahay inaad iska wadanaysid howlmaalmeedkaadii caadiga ahaa adiga oo dareemaya in aad fiican tahay balse cudurka qaadsiinaya ugu yaraan 3 qof toddobaad gudihiis maxaa dhacaya marka dadkaasi midkiiba uu sii qaadsiiyo 2 ama 3 qof oo kale kuwaas oo iyaguna dad kale sii qaadsiinaya xanuunka taas ayaa ah qaabka uu ku faafo cudurkan sidaas darteed marka aad bannaanka u baxdo adiga ayaa cudurka faafin kara ama adiga ayaaba soo qaadi kara oo guriga la iman kara sidan ayuuna ku faafayaa muddo maalmo ah ayuu cudurka sii qarsoonaan karaa intaasna dad kale ayaad sii gaarsiin kartaa balse u fiirsa marka dadka guryaha ay joogaan waxaa dhacaya tusaale ahaan haddii ciise uusan aadi lahayn meelaha fadhi ku-dirirka ah oo tolkii uu telefoonka ugu sheekayn lahaa haddii cawaale uu dib u yara dhigi lahaa booqashada sodohdii ama sheeqan masaajidka ka baaqan lahaa oo guriga uu ku tukan lahaa ama cambaro ay ka baaqan lahayd xafladda arooska oo ay buraanburkeeda WhatsApp-ka ku diri lahayd markaasi waxaa aad isu dhimaysa tirada dadka uu cudurkan ku dhici lahaa halkii ay ka ahaan lahayd 406 qof oo waxa ay tegaysaa 15 qof oo keliya haddii dadkan aan kor ku soo sheegay ay guryahooda ku nagaan lahaayeen dad badan ayaana sidaasi ku badbaadi kara bannaanka waad ka doonan kartaa waxyaabaha daruuriga ah sida dawada ama cuntada balse intii suurtagal ah gurigaaga joog tani waxa ay gacan ka geysanaysaa inay badbaadaan ehelkaaga aad jeceshahay iyo bulshada inteeda kaleba